Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan nagala socotaan akademiyadda software waxaan ku guda jirnaa course-kii general accounting-ka casharkiisii afraad ayaan qaadanaynaa haddii Allah awoodda la ogolaado casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay exercise ama layligaasoo ku saabsan chapter 1 chapterkii aan soo qaadanay waxaan rajeynayaa saddexdii cashar ee casharkan afraad ka horreysay inaad soo daawateen casharkan exercise-ka waxaa laga rabaa inaad uga soo shaqaysid hal maalin deadline-ka exercise-kan lagaga rabaa waa 1 day hal maalin lagaga rabaa ama 24 hours xiisadan xigta inta aysan bilaaban waa inaad ku soo gudbiso groupka aad ku jirto ee casharka aad ku qaadanayso layligeena ayaan sharaxaynaa si kooban kadibna exercise-ka inaad soo qortid aad ku soo qortid buugga manualka kadibna aad ka soo qaadid sawirkaasna aad ku soo dirtid groupka aad ku jirto ee casharka aad ku qaadanayso Telegram-ka layliga magaciisa waa B1-1A qofkii isticmaalaya buugga Principles of Accounting wuxuu ka heli karaa chapter 1 dhammaadkiisa qaybta u dambeysa B1-1A exercise-kan bilaabaynaa on April 2 bisha April 2 Julia Spangle gabadha la yiraahdo ayaa establish waxay aasaastay Spanglish Travel Agency shirkad travel agency ayay bilowday the following transactions dhacdooyinkan soo socda waa completed ayaana la dhameystiray during the month bisha inta lagu guda jiray transactionka bisha 1 dhaca muxuu ahaa asagana transactionka koobaad wuxuu ahaa invested waxay ku maal gashatay 15,000 oo cash to start si u bilowdo agency ama travel agency si u bilowdo marka 15,000 oo cash ayaa shirkadda soo gashay kadibna capitalka Spangle-na wuxuu noqday 15,000 paid transactionka labaad paid waxaa la bixiyay $600 oo cash for April office rent kiradii guriga ee bisha April oo $600 ahayd ayaa la bixiyay ayadana maxay noqonaysaa rent expense iyo cash purchased equipment qalab ayaa la soo gatay qalabkaas oo qiimihiisu uu yahay 3,500 cash ayaana lagu soo iibiyay oo waxa isticmaalay shirkadda travel agency-ga marka maxay noqonaysaa equipment na soo galay iyo cash naga baxay transactionka afraad increase waxaa la galay $700 for advertising cost xayisiin ayaa lagu galay xayisiintaasna waxaa qabtay Chicago Tribune shirkadda la yiraahdo on account deyn ayaana nagu qabatay marka maxay noqonaysaa advertising expense oo qarash iyo waxay kala saameynaysaa account payable oo waa deyn lagu leeyahay transactionka shanaad paid wuxuu la bixiyay oo shirkaddu ay bixisay $900 oo cash for office supply qalabka xafiiska oo yararka ayaana lagu bixiyay marka maxay noqonaysaa lacag cash naga baxday waa supply oo qalabna soo galay iyo cash oo cash naga baxay adiga laga rabaa inaad u kala isticmaashid minus iyo plus yaraansho iyo badasho transactionka ay saameynayso ayaan ku sheegay aniga transactionka lixaad waxaa lagu yiri performed service adeeg ayaa la qabtay oo hantidiisu ay tahay $10,000 $10,000 adeeg ayaan qabanay oo shirkadda travel agency ay qabatay $3,000 cash ayaa loo helay 3,000 cash 3,000 oo cash ayaa is received from waxa laga helay customer macaamilki and the balance intii soo hartana ama lacagtii soo hartay oo $7,000 ahayd spilled waana lagu dalacay spilled waxa lagu dalay customer macaamilka on account deyn ahaan ayaan ugu dalacay marka maxay noqonaysaa surface expense surface revenue waa dakhliga soo galay waa surface revenue 10,000 waxay noqonaysaa sidoo kale cash oo 3,000 iyo account receivable oo 7,000 transactionka toddobaad withdraw waxa uu qaatay qofkii milkiilaha ahaa $600 oo cash for personal use asaga si gooni u isticmaalay maxay noqonaysaa marka drawing wuxuu ahaa minus adiga ayaa laga rabaa inaad u kala saartid waa drawing iyo cash ay saameynaysaa
waa cash naga baxay iyo drawing oo asagana shirkadda ka baxay oo ka yaraaday. Transactionka 8aad paid Chicago Tribal, shirkadda la yiraahdo waxaa la siiyey Chicago oo noo sameynaysa advertisingka intii noogu sameynaysay waa kan shirkadda $200 aan ku galno oo deynta nagu lahayd ayaa 500 oo kamid ah ayaa la siiyey. inta soo harshana waa nalagu leeyahay 600 ahayd 100 kala diiwaan lagu leeyahay laakiin 500 aan bixin. Transactionka afraadeena dhacday marka maxay noqonaysaa account payable-ki waa naga yaraanaya cashna waa naga baxa. sidoo kale transactionka 9aad paid waxaan bixinay employee salary mushaarki shaqaalaha oo 2500 ayaan bixin. waxay noqonaysaa salary and wage expense iyo cash. Transactionka 10aad received waxaan helnay 4000 oo cash ah 4000 oo cash ayaan waxaan ka helnay from customer macaamiil who have previously been billed kaasoo hore aan ugu dalacnay in transaction 6 transactionka 6aad ayaan hore ugu lahayn oo muxuu ahaa adeega shirkaddan aan u qabanaynay customerka adeega aan u qabanaynay oo 7000 aan ku lahayn ayaa wuxuu noo keenay 4000 oo kamid ah. sidee loo diiwaan gelinayaa marka cashna soo galay oo 4000 ah iyo account receivable oo la yareynayo account receivable. Instructionka marka laga rabo waxa laga rabaa su'aalaha labadan su'aal inaad ka soo jawaabtid A iyo B laga rabaa inaad ka soo jawaabto. Kow maxaa lagu yiri prepare waxaad diyaarinaysaa tabular analysis waa jadwalkii aan hore u soo aragnay ee 10ka transaction lagu soo diiwaan gelinayay oo ka koobnaa asset liability owners equity oo transactionada lagu diiwaan gelinayay. marka tabular analysis-ga haddan arki doonaa tabular analysis waxaa la dhahaa tabular analysis-ka waxaa la dhahaa inta ayaan ka arki doonaa tabular analysis kana la dhahaa waa asset liability iyo owners equity. asset-ka wuxuu ka koobnaa cash account receivable supply equipment. liability-gana wuxuu ka koobnaa account payable owners capital owners drawing revenue iyo expense. tabular analysis marka waxaa la jadwalkan aad ku soo gelinayso cash plus ama minus halkaan aad gelinaysaa account receivable plus or minuskiisa jadwalkan la rabo inaad soo geliso kadibna aad la soo ekaysido oo labadan qayb aad soo saarto qaybtaana aad tira ka soo saarto isla eg laba qaybo isla eg totalka inta iyo totalka asset-ka kan oo kale ayaa laga rabaa. marka wuxuu ku yiri aan ku laabano prepare waxaad diyaarisaa tabular analysis jadwalka hadda aan tusinayay of transaction ee dhacdooyinka lagu diiwaan geliyo using adigoo isticmaalaya the following column hidden kolomyadii ay isticmaali lahayd akoonada ay isticmaali lahaydna asagaaba ku siiyey waa cash account receivable supply equipment account payable owners capital owners drawing revenue and expense. intaasoo akoon kama dhex baxaysid transactionkan oo dhan intaanoo akoon ay noqonayaan intaasaa laga rabaa waana inaad soo saarto total asset-ka. markaad asset-ka isku darto totalka soo baxaya waa inuu noqdo 20800. liability-ga markaad isku dardarto iyo owners equity-na waa inay soo baxdo ayadana 20800. B maxaa laga rabaa ayadana from analysis of owners equity qaybtiisa oo owners equity wuxuu ahaa qaybta dambe soo maahan compute waxaa xisaabisaa net income or net loss. net income iyo net loss-ka ayaa xisaabinaysaa oo sidee u xisaabinee net income iyo net loss sida loo xisaabiyo hore ayaan u soo aragnay waxaana soo saaraysaa 6200 waa inay ku soo baxdo 6200 haddii ay waxaagu saxan yihiin. net income iyo net loss sida loo diyaariyo hore ayaan u soo aragnay waa kuwan net income iyo net loss waa income statement la mid ah income statement iyo net income iyo net loss isku mid waaye waa tan net income saan uu kugu soo baxay soo maahan muxuu ahaa revenue-ga isku dardar expense-ga ka jar wixii ku soo baxa ayaa wuxuu noqonayaa net income ama net loss. magaca la isku dhahana waa income statement kaas ayaa laga rabaa inaad diyaariso marka adiga. B qaybtaas laga rabaa A iyo B daas laga rabaa inaad ka soo shaqaysid access-kan waxa uga soo shaqeynaysaa buugga gacanta waxa ku soo qoraysaa qaybta kore magacaaga buugga qaybta kore magacaaga ku qor access-ka magaciisa ku qor ama numberkiisa kadibna hal maalin uga soo shaqeey. access-ka markis ayaa saarnaa doona markiska waan qaybinaynaa haddii aan la idmo marka si fiican uga soo shaqeey haddii aan la idmo kadibna ku soo dir groupka aad ku jirto.